shir jaraa'id ay maanta ku qabteen muqdisho odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta ka soo jeeda beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa waxa ay kaga hadleen shirkooda jaraa'id hadal ay sheegeen inuu shalay ka soo yeeray xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. odayaasha ayaa waxa ay beesha uu ka dhashay xildhibaanka ka codsadeen inay raaligelin ka bixiyaan hadalkii ka soo yeeray oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid aysan mudnayn beel ahaan. waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee kulanka isugu yimid oo arrintaasi ka hadlaya. ana Cabdullaahi Sanbalolshe waxba ma dhaheynba waa mahadsan asay marada ka dhacday maradiisa xirtan baan dhihi lahaa nin marada suuq meel ma uu yahay la taagan yahay marada ugu dhacday kaliya uu qaymisin wax ka badan bilaaya umar ajuraana mana badin karo mana yareen karo marada ka dhacdayna asama xiran karo waa ka dhacday asaga tolweynaha uu ka dhashay waxaan ka rajaynaynaa in apologize ay ka bixiyaan warkiisa apologize laga bixiyo reer tolkiisa apologize la siiyo asagana sidaas loogu mar celiyo saasaan codsanaa aniga. Sanbalolshe waa xildhibaan qaran waaye xildhibaan qaranna wuxuu xildhibaan u yahay qabaa'ilada Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan asoo qabiilkiisii kicinayo inuu qabiil kala duro munaasib ma aha. Sanbalolshe oo ka soo jeedo beesha xawaadle ugu horeeyo waaska xawaadle iyo nabadoonnada iyo samadoonnada iyo culamaa diinka waxaan ka sugaynaa ereyga ka soo yeeray xildhibaanka inuu apologize ka bixiyaan raaligelin ka bixiyaan hadaan nahay beesha ajuuraan hadaan nahay ajuuraan ma tirtirmin ninkii aaminsan inuu ajuuraan tirtirmin ma tirtirmin waa joogaa xildhibaanu wuxuu ku leeyahay inta xawaalada ku leeyahay ka badan buu ku leeyahay dawladda dhexmaxuu wuxuu ku leeyahay xildhibaan wasiir ku leeyahay laba xildhibaan iyo wasiir bay ku leeyihiin waxay ku leeyihiin kilinka sharaad bay ku leeyihiin waxay ku leeyihiin dawladda dhexe Itoobiya xildhibaano ku leeyihiin waxay ku leeyihiin Kenya bay ku leeyihiin xildhibaano aan leeyahay xildhibaanka hadii jees ka tahay hadii aqoon darro ka tahay hadii taariikhda ajuuraanba uu waxba ka ogeyn waxaan leeyahay xildhibaanka horta dib u soo baaro dadka ajuuraan maanta wasiirada iyo xildhibaanadu uu ku leeyahayna waa yaqaanaa waana ogyahay ha ogaado inay ajuuraan uu ku leeyahay xildhibaano iyo wasiir iyo dhaqan Soomaaliyeed intaba Afrika iyo Soomaaliya intaba uu meel walba ajuuraan joogo waa ogyahay dib u baaro. marka waxaan ku leeyahay beesha xawaadle waa u fadhina kelmadaas tan reer barigana waxaan ugu baxnay hadduu reer bari yahay oo yahay reer Boosaaso ay baxgareen hadduu yaana hadalaan u haynaa waa kala ogaanayna reer jooga oo boqortooyo ah oo taariikh dheer iyo xadaarad culus leh oo deegaan iyo dawladaba ku leh dalka deegaan ballaaran leh Afrikada iyo geeska Afrikana deegaan ballaaran ku leh Soomaaliyana waqooyiga iyo koonfurteeda iyo Muqdisho degan wasiir ku leh dawladda xildhibaan ku leh saraakiil iyo janana ku leh in markii culays uu dareemo qofku uu ku halqabsado yiraahdo sidii ajuuraan loo waayo oo kala la idin weynaya hadaad waxa qabsan weydaan waa yar nasiib darro arrinka beeshu dhibsatay waa arrinkaas waxaan soo kiciyay oo na gubay erey aanan filaysanaynin xildhibaan Sanbalolshe ka soo yeeray ereygaas oo ah in qof markaas baxsad misana qof la waayo oo kale wax lagu sheego uu nagu tilmaamay annaga iyo magaaladii dhooban ama geeyiga Soomaaliya iyo Itoobiya iyo Kenya bariga Afrika aan iraado intaba annagoo dhooban inuu intaas iraado aad baan ugu xunnahay xildhibaanka waa qaldamay qaladka ha ka soo laabto bilaadanku qaldamaya qalad ha ka soo laabto haduusan qalad u ogeyn qalad buu galay ha isa soo saxo beelweynta uu ka dhashay ogaasyada waxgaradka nabadoonnada waxaan ugu baaqaynaa ayagana inay si nabad iyo naxariis iyo degdeg ah ay inagu soo jawaabaan war waad lumaysaan waad baabaysaan buu yiri ajuuraankii oo kale ajuuraan waxa uu sheegayaa walaalkeen Sanbalolshe xildhibaan qaran ajuuraan inuu san baabiin oo joogo oo meel walba oo joogo jasiiradda Maldives oo Asia meesha ugu dambaysa iyo Afrika meesha ugu dambaysa
iyo Soomaaliya ajuuraan waa joogaa ajuuraan ma bixin xildhibaan uu kuliyahay xildhibaanadu golaha kuula jira laakiin erigaas beeshu aad bay u dhibsatay waa huba beelweynta xawaale afar samatalis inaysan la qabin waa hubnaa maxamed cali waheliye Universal TV magaalada Muqdisho